الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. انتهى كبعد ولا ليال دمانتين laamaha shacabka Soomaaliyeed iyo madaxdaba waxaan idin soo gudbinayaa anigoo ku hadlaya magaca hay'adda culimada Soomaaliyeed. Tahiyatul Islam, assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. walaalayaal salaan kadib maalintan ama xafladan ila kulmisay yaan dhowr eray oo kooban ka dhahaya. midi waa shaqaalaha, midna waa mas-uuliyiinta, midna waxaa weeye shaqada la qabanaya nafteeda. islaamkeennu haddaan shaqada ku hormaro wuxuu ammaanay in la shaqaysto ammaanay. nabigeen aayadihii hadda aan akrinayay waxay macnahoodu ahaa in dhulka lagu socdo oo dhinacyadiisa la aado bad iyo bariba wax soo saarka lagala soo baxo. aayadda waxay ahayd salaada markaad tukataan fadhinina masaajidkeeda fantashiruu fi lard, dhulka ku faafa wabtaquu min fadli illaah, ilaahay irsaaqadiisa raadiya iyo fadligiisa. macnihii waa shaqaysta. shaqada islaamku aad ugu booriyey, u dhiirigeliyey. xadiid baa nabigeenna wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam: qofna ma cunin wax ka khayr badan gacantiisa wuxuu ku qabsaday. yacni wax la qabto waxaa ugu fiican gacantaada. nolosha taasaa ugu khayr badan. xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi: alyadu alculyaa khayrun min alyadi sufla. gacanta sare oo loola jeeda gacanta wax bixinaysa ee xoolaha iska leh yaa ka khayr badan gacanta hoos dhiganaysa ee dawarsanaysa. waxaa ka khayr badan gacanta wax bixinaysa. marka qofku inuu hanti yeesho oo shaqaysto uuna cid baryin waa sharaf iyo karaamo. laakiin in la iska fadhiisto ama shaxaad lagu raadiyo wax iyo fadhidir si loo yidhaah naga aamusiiya oo sidaa maciishadii lagu raadiyo aad bay u khaldan tahay.
qofku waa inuu ku talagalo dhididkiisa inuu maalo muruqiisa iyo maskaxdiisa inuu ku shaqeeyo inuu noqdo xubin nool oo dalka iyo dadkaba wax ku soo kordhiya ma aha inuu noqdo xubin meyd ah oo dadka iyo dalkaba culays ku ah oo asaga la biilo ma aha waa inuu wax soo saar leeyahay waa inuu fakar leeyahay waa inuu wax soo biirinayo shaqada intaa aan kaga baxo shaqaalaha waxaan dhihi lahaa qofkii shaqo haya oo hadda shaqaaluhu ma aqaanaa tiradiisii iyo intuu la egyahay laakiin waxaynu joognaa dal burburay oo raba inuu noolaado istaago qofkiiba bishaar wuxuu noqdaba ha noqda ee la siiyey inuu ilaahay kaga cabsado inuusan dalkiisa iyo ummaddiisa hayaanin sooma habboona waxaa weeye waxaynu rabnaa waddankii inaan istaajinno oon ka celno marka qof waliba meesha uu kaga habboon yahay uu taagan yahay haddaa diiya waddankii waxaad ogaataa matalan waxaan u malay sharcigii hore shaqada inuu ahaa 2 saac in la galayay 8 saacna laga soo baxay hadda ma aqaan inuu sidii yahay in la bedelay dowladaha dariska ahna sidaa ma aha maqribka agtiisay ka soo baxaan bal ka warrama muddadaa kooban horta muddadaas adigu iska mali waa inaad taa waa inaad ogaataan aakhara la isxisaabin waxaa weeye muddadaas mishaar baad qaadataa ummadda ayaa iskale waxaad saxiixday inaad saacaddaa shaqaynaysa marka inaad iska baxdid oo meelaha shaq ka soo cabdid oo iska soo fadhiisatid oo soo sheekaysid oo mar walba xafiiskii la tago uu bannaan yahay ilaahayna been baad u sheegtay ummaddaadina been baad u sheegtay ballantiina waad ka baxday adaa warqad saxiixay oo yidhi shaqaalaan ahay hal daqiiqad haddaad dumisid aakhara waa lagu qabsan ilaahay baa kugu xisaabay ama madaxweyne ahow ama wasiir ahow ama ka hoose waa in waktiga la ilaaliyo waa in ummadda loo shaqeeyo waa in qof walba xilkiisa sida ugu nadiifsan waa inuu gutaa markaan halkaa maraya waxaan leeyahay duruufta maanta aan ku nool nahay amnigaa la yidhi isagaa kowga 2 3 amniga dadka ka shaqeeya waxaan leeyahay indha gaara ha lagu eego askarta qoraxda taagan ha la dhaqaaleeyo kolkaas ayaa amni wax laga qaban karaa il gaara iyo naxariis gaara waa in ciidanka lagu feeriyo mas-uuliyiinta markaan kelmad u jeediyo ummaddan dhaawac weyn baa soo gaadhay way duntay ummaddan cadaaladaha loo sameeyo shaqada cadaalad ha lagu qoro alla ka cabsi ha lagu qoro waxaa weeyaan nin baa matalan ama agaasima ama wasiira ama wuxuuna xafiiskiisa markaa tagtid ama wasaaraddiisa reerkiisa war hadday ka ag muuqdaan ka warrama maalin saxan baa ma soomaalinima ma cadaalad baa ma arrin qaran baa sidaa lagu noqon karaa maya waa khalad waa laxni waa waddankii oo lugaha lagaga taagan yahay qabiil wax ma dhiso qabiil waxbuu dumiyaa dhibkiisiina waa soo aragnay laakiin waxaad moodaa weli inaynaan miyirsanin waxaan ilaahay ka rajaynayaa subxaanahu wa tacaala sanadkan dabaaldeggan maanta aan dabaaldegayno waktigiisa kale innagoo qabiil ka faraxalannay shabaabna ka faraxalannay shaydaan oo dhanna ka faraxalannay caalamkii soomaaliyeed oo xoog leh shacabkii soomaaliyeed oo isku duuban midnimo leh iskaalmaysi leh sharaf leh cudurkii uu ka baxay shuushkii uu ka baxay nabad allah inagu gaarsiiyo ilaahayna aynu ka cabsanno ilaahay aan la heshiinno kolkaasaynu guulaysan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madax qaran oo wasiire usuxugeeno iyo xubno baarlamaan baa inala jooga ixtiraam maamula iyo dhegaysi wanaagsan hase yeeshee marka u horeysa
aan iraado aan ku sheegay shaqaluhu waa dhulka shaqaxaysay ku sheegay shaqaluhu waa sharafkii dhulka shaqaxaysay ku sheegay shaqaluhu waa sharafkii dhulka shaqaxaysay wa kuwa shiila camuude kala shubaye kala susaanteeye وحوي حديث عامك إن حماسة ديجا إيرانتا دباديجا حسك تون لي وأخوانتا شغالها أدوكا سيجار أنا ودي كينا وقفصو ولو يقانو مالتي شغالها صوماليين لو يقانو ومسير كيدي مسير كيدي شغاله هذي أجاسيات هذي همان حال وليين ورسولة الروح البضان يحط إنسان سواء رجلي يوم كعشنا يوم كعشنا لا بقول شغاله كل كان شغالها صومالية يستكر كروينا شغالها صومالية والآن أنت برمج كرنوع عليه حتى لو نجوا عيدك بولس كان نجوا أخيانك عيدك بولس كان نجوا وحال إن نجوا أو كلك دولها نافلة كرنكا ولوس كل contribution كيف يصير خصوصيته يعني حسك دبادقة مالك كودبي نجوا ودبيودي يو إكريان وحا محمد نجوا قرر هواك خلق صومالي صوم يكرام marka inteena suuqado u gelin waxay u baahan tahay maxay maalinka maanta aad ku saabsan tahay iyada oo loo turjumay afka fanaaniinta aan ku wareejiyo
بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جميل فدرالك الصومالية وقيس الحسن الشيخ محمود والله وزيرنا وهري وزير الشقاق والمال والشدة كان لقمان والله حلبان الله برلمانك الصومالية حبناها حين قرون شغالة صومالية حبناها استفاد قروينا شغالة صومالية دمان شغالة صومالية بلنك سويكت إمادين علماء الدين وزارة الشقاق شغالها وسوق مخابز البرنامج كان يجوا ودجال حين قرون شغالة صومالية استفاد قروينا شغالة صومالية قرون كهوين كان hilmaha kuma jiro halka aan ku dhigayno muxuu ahaa munaasabada oo ay nagala joogaan muxuu ahaa maamulka ugu sareeya maamulada ugu sareeya gobolka banaadir waxaa ii muuqdaa xogyaha guud ee gobolka banaadir amiin sheekh iyo dhammaan guddoomiyaasha degmada gobolka banaadir waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib maanta waa maalin aad iyo aad u farxad badan oo weyn maalinta kowda May oo ku asteesa maalinta shaqaalaha adduunka waa maalin laga dabaaldego guud ahaan adduunka oo idin waddankaas munaasabad noocan oo kale ayaa muxuu ahaa laga sameeyaa waxaa sharaf weyn inoo ah sida uu agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya professor xasan sheekh maxamuud oo runtii nala joogo nala baashaalo nala bashxaradeeyo islamarkaas nala dabaaldego maalinta kowda May ee ku asteesa maalinta shaqaalaha adduunka farxad weyn ay noo tahay haddii aan nahay shaqaalaha Soomaaliyeed mudan madaxweyne waxaan ognahay shaqaalaha Soomaaliyeed in muddo ah runtii inay ku jiraan xaalad aan caadi ahayn ayna adag tahay in dhawaan iyo waxaas laga baxo laakiin dadaalo badan ay jiraan waxaan u jeedaa hulkan waxaa ku xardhan sloogano ama astaamo muujinaya awoodda shaqaalaha ay leeyihiin sida shaqadu waa sharaf shaqo la'aan waa horumar la'aan waxaa kaloo kumida qofkaan shaqaysanin ama qof shaqaystay qofkaan shaqaysanin waa kala sharaf badan yihiin intaas dhan waxay muujinayaan mudnaanta iyo awoodda shaqaalaha Soomaaliyeed ay leeyihiin waxaan ognahay wadamo inta badan horumaray waxay ku horumareen ma aha inta badan khayraadka ay haystaan tusaale waxaa loo soo qaadan karaa Singapore waxaa loo soo qaadan karaa Japan wax khayraad dabiici ay leeyihiin maanta la dhihi karo muxuu ahay wadamada kale wanaagsan yihiin malaha laakiin waxa ay shiileen kana faa'iidaysto waxa waaye xirfadda iyo aqoonta dadka iyaga ay haystaan dhaqaalahooduna kuma tiirsano khayraadka shidaal sida dowladaha carabta ay haystaan oo kale beere iyo waxaas kuma salaysan laakiin dadka ayay maaleen maskaxda dadka ayay ka faa'iidaysteen dhaqaaluhu wuxuu ku tiirsan yahay wadamadaas waxa loo yaqaan knowledge waxaa la dhahaa knowledge based economy waa dhaqaalo ku tiirsan cilmiga iyo xirfadda aqoonta dadka marka annaga dadkeennii annagoo haysana khayraad intaa la eg oo aad iyo aad u weyn haddana aan ka faa'iidaysanay shaqo la'aan baasan ay jirto in dadka ay shaqo haysanin in shaqooyinka laftooda leeyihiin xitaa looga yahay muxuu ahay basic salary muxuu ahaa mushaarka aasaasiga ah ee dadka ku naaloo lahaayeen iyadoo ognahay xaaladda dalka oo aad oo kale yahay maciishada ay kulushahay kirada dadka ay awoodi waayaan iyo khidmadii dhaqaalada ay aad u yahay waxaan rajaynaynaa in aad iyo aad xaaladda tan ay ka wanaagsanaato kowda Mayda dambe 2015 oo aan ku dabaaldegi doono insha allahu tacaala mudane madaxweyne maanta waxaan kaa codsanaynaa in shaqaalaha Soomaaliyeed waxaa jiro urur inta badan u ololeeya xuquuqda shaqaalaha isla markaasna danaynaya inay hor u qaadaan qaybeeda ka qabtaan xaaladda shaqaalaha waxaan rajaynaynaa ama ku codsanaynaa dowladda guddiga baarlamaanka ee khusay arrimaha shaqaalaha waa nala fadhiyaa madaxweynihii ugu sareeyay waddankan uu fadhiyaa in ururadaas la ansixiyo laga qaybgeliyo tripartite dialogue oo wasaaraha uu kusoo saxiixay Geneva 20 bishii Maars 2014 in la ansixiyo laga qaybgeliyo budget gaarana loo sameeyo sida budgetada ay leeyihiin muxuu ahaa qiimaha kale ee bulshada waxaana hubaa haddii xuquuqda shaqaalaha aad iyo aad loo saaro shaqo abuuris badan la sameeyo waan ognahay wax badan oo dhibaato ah waddanka ka jira maanta in ay wax badan ka qaban doonaan hadday ahaan lahayd dhinaca amniga hadday ahaan lahayd musuqmaasuqa iyo calas badan mudan madaxweyne waan ognahay budget badan in lagu bixiyo amniga qaranka laakiin amniga waa sax dad qaarkood amni la'aanta iyo waxyaalahaasii wada shaqay u tahay inaan amni daradaas maxaa yeele shaqo kale baa loo geeya taasoo ku shaqaysaa laakiin shaqo
shaqo loo abuuro shaqada laga fekero dadkaas loo helo qiimo meel ay ka heli karaan maanta ay ku noolaadaan ani muxbo mana muxuu ahaa aaminsanay qof in dhibaato inuu ku raadsado muxuu ahaa lacag iyo waxyaalahaas muxuu ka jecel yahay $10 ama $20 uu nadiif ku helayo isagoo ammaanka shaatigiisa sharaf leeyahay marka hadalku ku dheeraan maayo war badan uu watay laakiin waa leedahay taagan yahay mikrofoonka laga dafay ku dhowdahay marka waxaa idin leeyahay nabad gula ciida bashbash iyo waaqo madaxweynaha aad iyo aad ayuu maysaa assalaamu calaykum shaqaalaha Soomaaliyeed hadda loo qoraysay Zubayr ururka shaqaalaha weeyay gudubiyooda waxa la Maxamed Xaaji Professor Xasan Sheekh Maxamed wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada mudane injineer Rumaan waxaan kaloo salaamayaa gudoomiye xildhibaan guddiga arrimaha bulshada oo nagala joogo xildhibaan Abshiro iyo Aamino waxaan kaloo salaamayaa fanaaniinta hobolada waa beri marti sharafka kale ururada haweenka ururka dhalinyarada qaranka waxaan kaloo salaamayaa ururada bulshada maanta way haystaan waxayna diyaar u yihiin dowladda Soomaaliya inay gacan siiyaan la shaqeeyaan waxaan madaxweynaha hortiisa ka baran waxaan rabnaa dowladdeena inay ayadu isku filnaato oo manhajka waxbarashada ayada samayso aan dowladana siinin manhajka waxbarashada waxaan rabnaa inay dowladdeena samayso wax kasta oo ay ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha inta qorshaha meeshaan joogo maanta waa maalin taariikh waa maalintii wargeyska codka shaqaalaha Soomaaliyeed uu soo baxay oo madaxweynaha hortiisa gaaray wasiirka Soomaaliya ee maanta la jaanqaadayso xagga shaqada iyo shaqaale weynaha adduunka oo ay ku shaqaynayso hab yaraado telefaafka system oo ah loo shaqeeyaha ururkiisa ururka shaqaalaha iyo dowladda oo dhexda ah wasaaradda shaqada iyo mas-uulka tahay marka habkaas saddex geesoodka ku shaqeynaa sidaas darteed baan usoo qadinay ururada shaqaalaha Soomaaliyeed inay afkooda oo kala baxaan madaxda qaranka hortooda waxay shucuurtooda inay soo saaraan hase yeeshee waxaan markaan jecelahay in wixii ay ahaa LBC Soomaaliya ahaa oo loo bedelay iyada oo af abwaan ka soo baxday aan ku wareejiyo hooyadooda
waxaan u bugnaa in aanu maqalno erayo diiran oo ina dhiirigeliya sanadkiisa aan ku gaarno innagoo oo dardar badan oo ay noo soo jeediyaan madaxda qaranka. waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada injineer luqmaan oo isagana ikaan ku soo dhaweyn doono insha allah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya wada wasiir ku soo dhaweyn. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. علماء الدين وزير حجالنا حبيبنا وغوريت أمين وغوري ورد شقارها ورد هوينك ورد الرجال دمان بينما الأمنية فنانين وحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بعدي طبعا فرض دارنا إن هذول كانوا يجوا حاضر ويقولوا لي لكن شغالة يقبض اسمها لا مش هيمر بوش وأكثر رأينا اللي شيء أنا قاعد أنا صومالنا هي مالك تقدم بيسو واسي وحلا صوري فاي دول الدنيا نوصل بيسو سنة بسنة تقدم بيه وحبا محلل السيء الدائم معناها الدولة تسنة انتاسو سنة تصدح إلى لا تنسل واحد سنة إلا صوتيسو واحد بربرين تسهل ويه لكن واحد صوتيسو واحد سهل معه مركا وحنا إمكانيات الوائلين وضن كان وحا نقول سيسلام عبصر haddii aad shaqaalihii ummadda aad tihiin waddankiin inaad inaga dhistaan adigaa dhigi karta gurigaan aad dhex fadhisaan isaga laftigiisa wax usaa lagu dhisay shaqaalaha in loo adkaysaa la rabaa lacag la-aanaa na qabatay lacagtii aan naga soo daaray waddanka imkaaniyaadkiisu waa yelihi
wixii aad maanta waddanka ku qabatana ilmahagaa ku qabatay oo adaa qabsado jiilka ku qabatay waddankan ninkii maanta kelimad fiican ka geysta kelimad keliya sadaqay u tahay man sanna bisunnatin xasana falahu mithlu ajri faaciliha haddii aad wax fiican sunnaysid weligaa adiga ajirka usoo soconaya qofka sameeyo ajirkiisa anagaa iskale isagoo waxba qofkii sameeyso waxbaa kalaga ninkii jireeyey jidka la istaago isbaaro la dhigto wax xunuu sameeyey ninkii sameeyey in iskool la aado ilmaha iskool u diro saan wax fiican buu sameeyey marka noloshaan maanta geeriya ka dambayso xisaabaa ka dambayso xisaabtan kaliya maaha marka walaalahey waxaan idin leeyahay meesha waa lagu kulmaaday madaxweynaha waa lala joogaa madaxweynaha kusoo dhaweynayaa waa salaamantiin wasalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذا وزير أبي أنا ومحسن هاي ما أنت سير الله ولا شيء ومالين تشغلونها الدوكة شغالة الصومالية وحي كبيرين شغالونها الدوكة مركا حنا ولا جينا فرحة يحسك تاريخي shaqaalaha Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in shaqaalihii Soomaaliyeed sida dalku oo wasiirku u tilmaamay oo maalin walba uu meel uga soo baxayay shaqaalooyinii Soomaaliyeedna hadda inay soo baxayaan ayagoo ay dib u hananayaan doorkii ay ku lahaayeen dalka shaqaaluhu doorka ay ku leeyihiin dalka waa la wada garanayaa meel kasta oo wanaagga dalkan uu ka socdaay waxa wadaay waa shaqaaluhu muxuu ahay mid dowladda u shaqeeya ha noqdo mid private ha noqdo mid iskii u shaqaysta oo asiga iskii u nool ha noqdo waa shaqaale qofka subaxii inta baxa inuu soo xamaasho saakay oo maxaan ku ihahdaa biilka ilmihiisa soo goosto si saxa oo dhididkiisa muxuu ahay fikirkiisa caqligiisa kusoo goostaay waa shaqaale waana shaqaduna waa sharaf qofka shaqaystaay noocay doonta shaqadu qabanaa ha ahaatee shaqo xalaala oo sharciga waafaqsan qofka qabanayaahi siday doonta ha u yaraato ha dhib badnaato khatar ha lahaato ha beesa badnaato dhammaan waa shaqo waana sharaf shaqadu sharaf kuma kala lahaa beesada mushaarka la qaato iyo sarta qurxan oo laga shaqeeyo iyo meesha maxaan ku raacay midka badan laga shaqeeyo shaqo kuma laha waxaan waa mabda waa caqiido qofka bini'aadamka ah in uu ku toosnaado ay tahay oo ah dadka ha dhicin dadka ha xoogin dulsaar ha ku noqonin walaalkaaga kale oo wanaagsan ee adiga noolow oo midka aan duruufuhu u saamixin inuu sida aad u noolaan karto u noolaadane noolay shaqaaluhu marka waa sidaas waxay ku salaysan yihiin jiritaanka ummaddan ayaa ku salaysan shaqaalaha iyo shaqada waan qabanaynaa shaqadii waxa inaan shaqayno oo aan shaqaysano choice ma yani kala doorasho ma ah ma rabtaa mise ma rabtid ma ah يعني قفنا ما جعله سيدي سبب إنه سيدنا ما أكون ولا هذا جعله ظروفكم مولاي وما كان يصير أسمع باجنا أكمل ده حتى قرات كيس إجراشين سأكمل نقط لكن بدكم بين آدم كائن وحنا من نورا شرف يهيبة يكرام يقولوا لي ماشى يكمل هذا وقف إنه شقيسته أو أسوء سكتير سنة السبب إنه محمد على كتير سنة لكن السبب برضه قف أنا كل فكر إنه ده كتير سنة برضه قف ولا بس كل فكر تاني قف كان كتير سنة على وين يعني الرسول كان عليه الصلاة والسلام أنت أحاديث أنت آيات القرآن قصة أرورتي محمد الوناد شقادة نظيفة محمد شرعة محمد عقل السليم أو وافقسن وضع التمييز شقراءات iyo ku tiirsanaanta iyo baryada
dhibka ay leedahay waa garanaysaa ugu dambaysa alyad alculya khayru min yadi sufla haddaad gacanta taaganayso oo aad gacanta u taaganayso waxaad la shaqaysan markaad inta shaqaysatay joornaatigaada aad qaadanaysa gacanta u taaganaysa maaha waxaa laga hadlay waxaa laga hadlaya waxa waaye waa markaad baryootamayso waa markaad baryootamayso oo aad inaad shaqaysata aadintii markii duruufuhu kuu kalifaa inaad shaqaysan karin mas-uuliyadda koobaad dowladda laga rabaa in ay qofka soomaaliga ee muwaadinka ee duruufuhu ay ku kalifeen inuu shaqaysan karin inay dowladdu garab istaagto oo ay kaalmayso ayaa laga rabaa dowladdeenu maanta haddaan kari karinna ilaahay isberi way kari doontaa inay hubiso qof walba soomaaliya inuu shaqaysto kii aan shaqaysan karin oo duruufuhu ay ku kalifeen inaanu shaqaysan karin si macquul oo la fahmi karana dowladdu inay garab istaagto ay kaalmayso oo noolaado welibo maxaan ku rahaa laakiin qaabdada waxaad ku noolaanahay irsaaqadaada way qoran tahay laakiin qaabdada ku raadinta waayo waxay ka qaldan tahay isbaaro dhigo jebsi caawa gurigu soo dhac ninka rashidkooda wax ugu darsan bixiisa khiyaan muxuu ahay waxaad iibinaysa khiyaan beedba yaray miisaanka inta ka dhin waxaasoo dhan waa shaqo xun waa camal xun laakiin sida hadda looga dhawaajinayo shaqada inta ay hadba qofku dhidid uu ka keento ayay kasii macaan tahay kana sharaf badan tahay kana xalaalsan tahay hadba qofku intay juhdi iyo fikir iyo dadaal iyo waxaan qurxi waajibaa lagu leeyahay xuquuqaad dalbatay mishaaraad dalbatay joornaatiyaad dalbatay waa lagu siinaya waajibaa lagu leeyahay inaad waxa sida ugu fiican oo loo qaban karo inaad u qabato oo caqligaada iyo awooddaada ay ku saamaxayaan oo ay ku siinayaan laakiin markaad laablaab guliso midka tuugsada oo dadka gacanta u taagta yaa kasii xun magaranaysa waxaa kasii xun kan musuqmaasuqa ah oo laaluushqaataha ah oo beesada dowladda xado oo qalin iyo warqad iyo cudurdaar u raadiya waxaa ka xun kan qaata beesada u siinayo reerka inuu yahay daraaddeed maxaan ku yidhahdaa dhibkiisa iga leexiba markuu wejigayga haddaaf iyo waxa la waxaasi waa waxa karaama darada keena qofkuna diiwaan adduunyay mid aakhir meel kuma gaaro gurigaagay ka muuqanay maxaan ku yidhahdaa shaqadaada iyo sharaftaada iyo middaada wejigaagay ka muuqanay markaad macno lahayn laakiin qofku markuu shaqaysanayo oo maanta soo shaqaysta soo daalay caawa asoo soo shaqayso gurigiisa maana garanaya maanta waxa ku soo shaqaysta $1 maanta soo shaqaysta ama $100 soo shaqaysta dhihi kara caawa gurigiisa ka yimaado wixii ilaahay u saaqaxunay saacada bilishka waa midda ugu sharaf badan ugu qiimi badan isbaaro dhigo laaluush qaado adigu bixi inta ka dabalaab si wax badan kusoo go-aan muxuu ahay waxaad laaluusha qaabka sii bixi iyo wax lamidayo waxaan rabaa marka shaqaalaha soomaaliyeed inuu mahadbaliyeeyo sanad guura muxuu ahay xuskaas kow dambeey waxaan rabaa inaan ku bogaadiyo dalkeenu wuxuu ka soo baxayaa god oo ku dhacnay oo muddo dheer ku jirnay ayaan ka soo baxayna qaaraan soo qabsanaynaa waa nala go-aa midaan qabsanaynaa waa koron loo qaadaa mid kale marka waan soo soconaa maanta marka wax badan oo aan mudnay ma haysano laakiin waan helaynaa waddadii lagu helayna waa ku taaganahay oo ah dowladnimo ururada shaqaalaha waxay u taagan yihiin inay difaacaan xuquuqda shaqaalaha xubnaha ka ah koow iyo maslaxadda caamka ah dalka inay horumariyaan haddii dowladi jirin xaggee xuquuqda ka daaficay xaggees xuquuqa ka jira dowlad functional oo shaqaynaysa oo dal oo dhan hanatay haddii aanan jirin xaggee xuquuqda ku daafacdaa meelad ku daafacda ma arkaysa dalka xaggee dalka dhistaa haddaan lagu ogolayn jirka qashinka inaad ka qaadinba mid xun uu taagan inuu ku ogolayn oo haddii aad doonto iskoo kale inaad dayactan tahay mid una ku ogolayn guri adu meesha hay-adaan ku sugayaayo muxuu ahay waxaan rabaa inaan muxuu ahay timaad adiga iska raalli aho soomaali xoogiisa ogda anu marray waxaasoo dhan waxay ka dambeeyaan dowladnimo waan dhahno shaqada waa shaaf laakiin shaqo iyo nolol iyo horumarin iyo xuquuq iyo wax walba waxay ka dhex jiri karaan oo keliya xaydaabka dowladnimada shaqaalaha soomaaliyeed inta shaqaysataahay waa dowladuna ma aha meesha keliya dadka soomaaliya wada shaqaaleyn karta dadku maanta hadda in ka badan 3,500 oo qof ayaa subaxdii dowladdu shaqo tagto rayid ah in ka badan 20 oo ciidan ana subaxdii dowladdu u shaqo tagtaa
intaasi marka waa qof walba qoys Soomaaliyeed uu ka taagan yahay laakiin waan rabi lahayn inaan boqolaal malaayiin qoys oo Soomaali ah inay shaqada dowladda ka faa'iideysto laakiin waxa ka sii weyn oo dadku ay ka faa'iideysan karaan waa in shaqada abuuro dowladdu shuruucdii nidaamkii xeerarkii dhiirigelin lahaa in shaqooyin badan la abuuro dadku shaqa timaado oo dadku shaqaystaan dowladda mas-uulka dadka inay wada shaqaalayso dowladda mas-uulka mana kari karto shalay daraad waxaan tegay muxuu ahaay meel halkaasoo dhismo ka socda shuruucaan dhisnay xerad kaam oo ciidamada military police ay dhisay kaamka dabcan dowladda Soomaaliyeed awoodii maanta ku dhisata ma lahayn waana loo gaarnay lacag badanaa ku baxaysay xero tababar oo wax lagu bartay maslaxaday ahayd horumaray ahayd shalay aanay qabin dalkaynu aan weyn oo ahantii dowladda Soomaaliyeed ay leedahay oo ay u isticmaalayso dhismaha ciidamada qalabkiisa wax aad iyo aad u fiican waa mashruuc qiimi badan qurux badan sidoo u dhisan yahay casri ah qalabkiisa aad u qurux badan waan ku farxay markaan laakiin maxaan uga sii farax badnayd waxaan uga sii farax badnayd kun dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo meesha ka xamaalinayso ka shaqaysanayso 900 ilaa 1000 qofood ayaa maalin kasta u shaqo tagta dhismaha mashruucaas dadka telefishinka haddaad ka aragteen kulli waa dhalinyaro waa mashruuc yani xaddigaas maanta aan joogno loo fiiro weyn laakiin waxaa suurtagal ah mashaariic ay 10 kun 20 kun 30 kun 100 kun oo qof ay ka shaqaysaa suurtagal dalka in laga sameeyo laakiin maxaan u baahannahay deganaanshiyo amnigii inaan ka shaqeyno oo muxuu yiri ninkii muxuu ahaa jaanka oo sabxan caawinaya iyo rabda ay digreeyeen lagu iscaawiyo aaw yani mashaariicdaas oo dhan waa bedel waa taala maalin walba waxaan yidhaahdaa dowladda dadka Soomaaliyeed hal saacidaano si aan u saacidna ayaga oo amni ha keenaan si aan u nimaado oo aan muxuu ahaa wixii burburay wixii baaba'ay aan ula qabanno ula dhisno ula qaado waa sababta maanta la joogaahay muxuu ahaay amniga ay uga dhigtay dowladda Soomaaliyeed muhiimadda koowaad oo dowladdu ay leedahay shaqaalaha rayidka ah waxaan rabnaa dalku maanta meeshii hore ma joogo berrina ilaahay idinkiisa uu kasii qurxoonayaa inaan u diyaargaroobo waxaan aad iyo aad idinku taageerayaa oo aan dowladdu idinku taageeraysaa in shaqaaluhu isu yimaado oo ururo shaqaale ay samaysmaan ururo shaqaale samaysmaan oo xirfadleyda isku tagto oo xirfadahooda iyo dadka xirfadaas ka shaqeeyahay ay difaacaan danahooda oo ay ilaaliyaan oo ay ka shaqeeyaan oo ay horumariyaan ma aha bas inay cadow ka difaacayaan laakiin ay horumariyaan hadday tahay ganacsigooda hadday tahay shaqadooda hadday tahay duruufaha ay u shaqeynayaan haddayna sidaas ahayd bini aadanana kulligeed xadgudubka iyo qaabdarrada waa la dhaarna waa la qaabdarraynaya ama si xuma loo isticmaalaa shaqaalaha laakiin markay urur leeyihin xuquuqda isku doodanayda maya waxaa waa khatar meeshaan laguma isticmaali karo qofka shaqaalaha saana looma isticmaalo qalabkaan u baahan yahay qofka shaqadaan qabanaya waxa yani saacadaha iyo environmentiga noocaan waa in la abuuraa jawiga shaqada ku habboon wixii oo dhan waxa dowladdu qawaaniin iyo nidaam waa u jiray halkan way dhamaystiraysaa way dejinaysaa laakiin cid ilaaliso daba taagan oo waxay u baahan tahay kor ka fiirso tiraa maya saansi maha shaqaalaha laga daayo haddii shaqaaluhu ay sameynayaan muxuu ahay xadgudubka tiraa maya xuquuqdooda lagu leesaan maahan aan toosan shaqada iska qabno saacadaha shaqada ilaalino muxuu ahay camalka yani si tadqiinina aan u ilaalino muxuu ahay shaqada aan qabanina aad iyo aad ayay ayadana muxuu ahay muhiimadeeda u leedahay shaqaaluhu ma aha shaqada keliya waxay xaq ku leeyihiin talada dalka inay fikir ku yeeshaan horumarka dalka inay fikir ku yeeshaan oo ay ka hadlaan wadada horumarka Soomaaliya oo ay tala ku yeeshaan oo siyaasadda iyo dib-u-dhiska siyaasadda ay maaha dalkan dib-u-dhiska darbiyada bas maaha dib-u-dhiska siyaasadda yaa wuxuu looga baahan yahay hawl aad iyo aad u ballaaran
إن عن قرنانا لغير باشا قالوا دوري كلين عضي كلين طريق كلين دبوليسكي أن قيني أيو فيزيكال كايا مباهنا سيدا هذا لو قد واجدني مقالة دامر إنه أركك أنه وحي عن حب بين إسكا وقف صعب كسامي بس إيه شغالة على جري حب بوضع كل ماستر مان ماذا اسكول ماذا برعافمات ماذا حفيز ومقالة كتالا كسامي سنتي سلاس dadkii aan nahay weli waa kari karnaa annagii u baannay weli dadka suwa hadda dayacgacmeed lagu keenay maahin shalay waa samaynay maantana aan u noqonna aan samayn andaha waa samayn karnaa mar kale waxaan u hambaleynayaa ururada ku guulaystay dadka ku guulaystay inay inta isu tagaan ugu sameeyaan hambalyo xirfadiina ilaaliya xirfadiina iyo danihiina ilaaliya dowladduna waa ay ku garab istaagaysaa idinkuna is-ilaaliya oo kiini xadgud bale qabta oo dhaha joog sidaan maaha kiini inta muxuu ahay maanta joornaati qaato shaqadii lagu heshiiyey shaqo ka yar qabanayo ama sidii lagu heshiiyey si aan ahayn u qabanayo in loo diruubaayo lera waa aakhira baal iyo adduunye baal isla socda ka gaar laanna waa adduunye baal beri adiga shaqada si fiican qaban iga tagaa waa iska kaadara baa lagu dadka ku soo baray waa aakhira baal oo muxuu ahay waa khiyaana samaysa dambi aan laga qoraya marka meel ku habboon tahay inta ma jirto waxaan leeyahay mar kale iyo mar kale muxuu ahaay hambalyo shaqada muxuu ahaa dalkana ha loo soo istaago diburiskiisa ka shaqayntiisa ra'yiga toosan waan liidanaa qabkii weli bannaan uma soo bixin godkii aan weli soo tafaynaa soo socona laakiin sagxaddii godka meesha ku hoosiisa waa ka nimida dhaxaan soconaa waxaan oo dhan weli waa leeyihiin aan dhiirano shaqada aan ku dhiirano dhaqanka wanaagsan aan ku dhiirano danta Soomaaliya aan ku dhiirano markaan leeyahay waa hambalyeynaya ururada shaqaaluhu iyo inay samaystaan iyo xirfadleydu inay isku tagto waxaan ka wada wixida qofka biniaadamka waa inuu meel ka tirsanaada qofaan meel ka tirsan inuu keligii isku joogi jiro mu jiro waxaan ka tirsannahay maanta waa maxay xaggee ka tirsannahay qabaa'ilkeena ka tirsannahay meel kale kama tirsan uu shaqaalo badankeeda kama tirsan xisbi siyaasadeed kama tirsan xirfadlo kale iyo kalaab kale iyo muxuu ahay isu tag kale kama tirsan beeraheena ka tirsan siyaasadda beeraysan waa soo aragnay ganacsiga beeraysan waa soo aragnay shaqada beeraysan oo muxuu ahay wiilasha beeshale hadda shaqo geliya laleeyahay waa soo aragnay meelna ma geynayso حمل بيني وحيت أروح عن وضلنا هاي وشكركم هاي والدولة ما أنت الدولة ده فدرال كأكيد واحدة الصومالي تسوي من أي ودليه واحد الله واحد قاعد لو كان الليل بدأ عن وضلنا عن حجتهم سيقصوا تبش واحد قاعد كنا هذه دولة قبلت هاي وهذه شركة كبيرة هاي وهذه إسكاش هاي هذه أولو شغال كفني قاعد هاي وحيث تجري بدأ سكود الدولة دماغ markay hirgasho oo ay xalaq qaado oo ay socoto dhaxdeeda wax ku samaysmi karaan laakiin xaydaa ku dowladda
Thank you.